4,286 arday ayaa u fadhiisatay imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana muuqata koror tirada ardayda sanadkan u fadhiisatay imtixaanka markii loo eego sanadkii hore waxaana sanadkan imtixaanka la gaarsiiyay deegaano horle oo ay kamid tahay degmada Qasax Dheere markii laga hadlayo Koonfur Galbeed Soomaaliya imtixaanka oo maanta lagu qaadayay goobo fara badan oo ka tirsan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxaa si toos ah u daahfuray wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Koonfur Galbeed oo booqday mid kamid ah iskuulada lagu qaadayay imtixaanka ee ku yaala magaalada Baydhabo ugu horeen waxaa warfidyaanka la hadlay isla markaasina u faahfaahiyay tirada ardayda u fadhiisanaysa maanta imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Koonfur Galbeed Faadil Cabdullaahi Maxamed iyo sidoo kale wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada Cabdifataax Samaale mayniska koynahay daahfurka imtixaanka oo fasalka 12aad ama secondary-ga kaas oo geedka lan wada fadhaaday degmooyinkii iyo deegaanada nasiibka waaldadan inay ku qalin jibiyaan ardayda dawladda Koonfur Galbeed dugsiga sare kaas oo guud ahaan imtixaankaasina ka wada heleen goobagiyo ka sugnaayeen marka sana dugsiyeedkan 2022 imtixaankan dawladda Koonfur Galbeed ma in fadhida doonta tiradeerasa 4280 waxaan rabaa halkan inaan ugu mahadceliyo wasaaradda waxbarashada federaalka iyo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed mas'uuliyiinta ugu sareysa dhamaantooda oo u istaagay inay gaarsiiyaan imtixaanka deegaanada duruufaha haysta ee Koonfur Galbeed ku yaala gaar ahaan degmooyinka Qasax Dheere iyo Xudur iyo degmooyinka Buurakaba iyo Marko oo xaaladooda aan ognahay in ay iska adag tahay ardaydan adeega halkaas lagu gaarsiiyay dadkii gacanta ka geystay dhamaantooda waa u mahadcelinaa wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Koonfur Galbeed mudane Maxamed Cabdiraxiin Nuur ayaa waxa lagu farxo ku tilmaamay tirada sanadkan u fadhiisanaysa imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa sidoo kale uu sheegay wasaaradda waxbarashada in mar walba ay u taagan tahay dardargelinta iyo tayeenta waxbarashada Koonfur Galbeed Soomaaliya ay noqotay maalin weyn taasoo ah in ardadii dugsiga sare maanta ay u fariisteen imtixaankii shahaadiga ahaa oo in muddo laga soo shaqeeyay juhd badan la soo geliyay taasoo ay qayb weyn ka qaadatay wasaaradda waxbarashada ee federaal sida wasiirku uu sheegayba deegaano oo weligood aan la tagin ama imtixaankii aan gaarin la gaarsiiyay sida degmada Qasax Dheere iyo meelaha kale oo dawladda Koonfur Galbeed ka tirsan waxaan leenahay intii ka shaqeysay ugu sareeyo wasiirka wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka wasiir Faarax Siraaj Sheikh Isaaq warbaahinta qaranka